waa kan burburka adduunkan soo jiray quruumaha tiraha badan. waxaan maraynaa waqtigii calaamadihii saacadda ee waaweynaa wax yar unay ka harsan yihiin, laakiinse aynan weli soo bixin. imise quruumaa soo jiray, dadku weli qaflad bay ku jiraan. imise dad isa soo dilay, imise dad isa soo laayay, imise dad ayaa soo dhintay, imise quruumo ayaa tegay, imise boqor ayaa soo taliyey, imise madaxweyne ayaa adduunkan soo maray, imise. koonkan saan u weyn ee aynu wada arkaynaynu ku noolnahay, waxaynu arkayno iyo waxaynaan arkayninba, wax allaalo waxa ku nool oo dhan, waxa dhaqaaqaya iyo waxa taaganba, waxaa jira maalin ay soo afjarmayaan oo ay u dhammaanayso. amarka Ilaahay markuu yimaado way wada halaagsamayaan intuu Eebba ka reebo mooye. amarkaasina waa marka suurta la afuufo ee ay wada dhimanayaan waxa dhulka ku nool iyo waxa samada ku nool dhammaanba. iminka waxaynu maraynaa waqtigii ka horreeyay cadceed u dhaca inay cadceedu ka soo baxdo iyo soo bixidda Ya'juuj wa Ma'juuj. iyo soo bixiddii Masiixu Dajaal iyo daabaddii dadka la hadlay siduu Alla Qur'aanka ku sheegay. waxaan maraynaa hadda ka hor dhammaadkii dhulka. gabagabada caalamku waxay bilaabmatay markii nebiga la soo diray. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. laakiin intaana bilaabin walaalkayga moolaashida sharafta leh, hanaga ilaawina taageeradiina waxay noo tahay dhiirigelin si aan hore ugu sii dhaqaaqno, gambaleelkana furto si idiin soo gaadhaan wax kastoo cusub. mahadsanidin. aan bilaabanno. xaaladaha ka horrayn doona maalinta qiyaame. ka hor intayn maalinta qiyaame dhicin waxaa jira calaamado ka horreeya oo ay ka mid yihiin Ya'juuj wa Ma'juuj, Masiixu Dajaal, daabadda dadka la hadli doonta, cadceedda oo ka soo baxda halkay u dhacdo, qiiq isqabsan doona adduunka oo dhan. marka intaasi soo ifbaxaan, adduunkan dhammaan waa uu isbeddelayaa. albaabka toobaduna way xidhmaysaa. adduunkana waxaa ku hadhaya dadkii ugu sharka badnaa, dadkaasoo ah kuwa arki doona calaamadaha qiyaamaha. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. suurta koobaad marka la afuufo waxaa wada dhimanaya wax kasta oo nool. calaamadda ugu dambaysaana waa dadka oo dhan iskugu keeni doona, soo kaxayn doona oo keeni doona meesha maxsharka maalinta qiyaame. mar labaad ayaa suurta la afuufaya, deedna waa la wada dhimanayaa dhammaan. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. suurta labaad marka la afuufo waa suurtii dilaysay wax allaala waxa dad ku nool cirka iyo dhulka oo dhan. waxa ayna dili doontaa dadka mar ay khaflad ku wada jiraan oo arrimahooda adduunka ay ku wada mashquulsan yihiin. suurta dhawaqeedu waa mid aad u xoog weyn. qofku marka uu maqlo halkaasuu ku dhimanayaa.
ma awoodo in uu ehelkiisii dib ugu noqdo ama uu cid la dardaarmayo. saasay ugu dhammaanaysaa. يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ilaahay subxaanahu jalla fi culaa waxa uu u dhiibay suurta la afuufayo Israafiil calayhi salaam ilaa maalintuu abuuray, ilaa maalintuu u dhiibay, ilaa maanta wuu isdiyaarinayaa si uu u afuufo. maalinba maalin markuu ku biiro isdiyaariskiisu aad ayuu u sii xoogaysanayaa. nebiga sallallahu alayhi wasallam ayaa waxaa laga soo wariyey in uu maalin ku dhahay asxaabtiisa, maxaan wax cunaa oo aan wax quutaa, isaga oo Israafiil ama malakii suurtu intuu suurta afka saartay lugahana kala bixiyey, idanna uu ilaahay ka sugayo. subxaanallah. asxaabtu ridwaanullaahi calayhim waxayba isdhaheenba maanta weeyaan maalintii qiyaamaha. markaasuu nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku dhahay, waxaad dhahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil. waxaa wariyey Tirmidi, waana xadiid xasan ah. ugu dambayntii allah jalla fi culaa wuxuu ku amray Israafiil inuu suurta afuufo. markuu afuufay dadku waxay maqleen cod aad u xoog weyn. codkaasoo dhammaan dadkiiba wada madoobeeyey oo adduunkiiba dhammaan gilgilay oo rogay. waxaanan soo sheegnay waa wax adduunka sugaya, in uu dhulku gargariiro oo uu dildillaaco, in buuruhu ay gilgilmaan oo ay soo wada dumaan, in dabka kaca adduunku ka yaabo, in baduhu ay soo fatahaan oo biyuhu dadka qaadaan. samaduna way gilgilmi oo waa ay iftiimi. qorraxda iftiinkeedii wuu isbedeli oo waa la waayi. dayaxa sidoo kale iftiinkiisii waa la waayi. xidiguhuna waa ay soo daadanayaan. say wax u jiraan? waa la waayey qorraxda iftiinkeedii, dayaxa iyo xidigahana sidaas oo kale waa la waayey. adduunkii wuxuu noqday mugdiyo saaran. say wax u jiraan? jinkii dadka ku dhex jiray oo dhan wuu ka soo dhex baxay oo wuxuu dhahay, yaa rab subxaanak, say wax u jiraan? yaa qaadiru yaa jabbaar. waa ay wada dhawaaqeen. samadii way gilgilmaysaa. eber adduunkii oo dhan wuu baaba'ay. wax soo hadhay ma jiraan. waxaa soo kacaya dabkaasoo dadka iskugu keenaya banka qiyaame. inta aynantaasi dhicin, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa amraya mar labaad inaa la afuufo suurta. marka labaad marka la afuufo, dadka oo dhan way isku wada imaanayaan. ilaahayna wax kasta oo nool nafta ayuu ku soo wada celinayaa. waana yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin. allah ayaa amar ku siinaya Israafiil in uu mar labaad suurta afuufo si ay dadkoo dhan u soo wada noolaadaan. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam, marka suurta labaad la afuufo waxaan ahay qofka ugu horeeya ee soo noolaanaya ee soo kacaya. mise waxaaban arkayaa nebi muuse calayhi salaam oo carshigii ilaahay haysta. muu iga soo horkacay mise wuxuu ka mid ahaa dadkii uu alla reebay? allahu aclam. rawaahu bukhaariy. innaguna waxaynu ku sugannahay wax yar ka hor maalinta qiyaama intaynan dhicin xaalado yaryar. laakiinse waxaa dhici doonta maalinta qiyaamaha taasoo naftu ay yaabi doonto. dhagaha dadka qubuuraha ku jiraana inay qarxaan ay u dhowaan doonaan. qaylada markay maqlaan qabriyaday ka soo baxayaan yaab iyagoo yaaban.
waxaad u malaynaysaa qaylada qof qabriga ka soo saartay. ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu sifeynayay wuxuu dhahay waa maalin weyn, waa maalin weyn, waa maalin la yaab badan, waa maalintii soo bixinta iyo cabsida. saynanu ahayn iyadoo ah maalintii ilmaha yari uu cirro yeelanayay, iyadoo ah maalintii ay hooyada naaska nuujinaysa ama hooyada uurka caloosha ku wada ilmaha goor uu ka soo dhacay iyo gooray tuurtay aynan kala ogeyn. saynanu ahayn maalin weyn. subxaan allah, subxaan allah, subxaan allah. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. waa maalin dadkaad ugu jeceshahay aad ka ordayso wax cid kale kaa galay naftaada mooyaane aysan jirin. waa maalin dadka qaar ay tamaniyayaan adduunkan waxa yaallo oo dhan haddii ay haystaan inay ku beddelan lahaayeen si uu ilaahay cadaab u baalmariyo jannana u geeyo. subxaan allah. قربت ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها وربك لا شك أوحى لها تحدث أخبارها ربها وربك لا شك أوحى لها وربك لا شك أوحى لها. النفس ما عملت محضرا ولو ذرة كان مثقالها يحاسبها ملك قادر فإما عليها وإما لها ugu dambeyntii walaalahayga sharafka loo waxaan soo gaarnay gabagabadii muuqaalka. haddii aad ka hesheen taageeradiina hanaga ilaawina una sii gudbiyo walaalihiina kale si ay uga faa'iidaystaan. intaan muuqaal saanoo kale kaga kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa nabadii ilaahay korkiina ha ahaato.